السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم وبركاته. ورحمة الله وبركاته. markale daawadayaashayda aan jeclahay waa barnaamij cusub aan bilaawayno kaasoo aan kusoo qaadan doono xadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam. xadiiska ugu horeeya aan qaadanayno maanta waxa uu ka hadlayaa in masjidka laga baxo markii la aadamo kadib. عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه المسلم. saxaabigan la yidhaahdo can abi shacta waxaa laga wariyey inuu la fadhiyay abu hurayra radiallahu canhu masaajid gudihiisa. imaamkii ayaa aadaamay, nin ayaa istaagay, masjidka ayuu ka istaagay, wuxuuna u socday, micnaha waa uu baxay. faatbacahu abu hurayra basarahu, micnaha ishiisii ayaa raacday, ninkii baxayay ayuu eegay xataa kharaja min almasjidi ilaa uu ka baxo masjidkii. faqaala abu hurayra waxa uu yidhi amaa haadaa ninkani faqad casaa abalqaasim, wuxuu ku caasi garoobay abilqaasim. abalqaasim waa mid ka mid ah magacyada rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. haddaba haddii ahayd mid markii masaajidka markii la aadimo kadib balaanka iska soo fiirsada, haddaba waa la diiday ka har. xadiiskan hadduu kugu cusub yahay fadlan sheer dheh oo gaarsii dadka aanan ogeyn xadiiska kani. waxaan ahay walaalkiina caaqil yacqoob faysal aadan yacqoob yare oo idin leh ilaahay jannada hanagu wada kulmiyo insha allah.